marka ma kula tahay in Arsenal ay ka badi kartaa Manchester City waa calaamad su'aal weyn ee meesha ka taagan. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir haddii aad runta qomaasanta haddii nala socoto dhanka Facebook iyo dhanka YouTube-kaba qaybta hoose linkiga ayaa soo dhigi doonaa YouTube-ka ayaad ka daawan doontaa. haddii aad Facebook nala socoto waxaan kaa codsanaa inaad noo share gareyso asxaabtaadana gaarsiisato waa naga codsi. in muddo maanan arkin mashquulkii ramadaankii wixii aan soo dhexgalay dabcan waa dareemi kartaa bil ramadaan iyo anigoo ka caajisay howlahan iska wada haddana waa dareemi kartaan inta badan waxaan ka dhigtaa madadaalo ay ii tahay aniga waana ku mahadsantihiin asxaabta kale. dabcan waxaa idinka codsanayaa asxaabta maadaama aad daawanaysa videogan waxaan ka codsanayaa asxaabtaada gaarsiisid in yar oo kamid ah xataa haddaa laagna siisa xataa waa sharaf ay noo tahay waan kaga mahadcelinaynaa. aan u badagalo mawduuciga waxaan ka hadli doonaa Premier League dhamaadka oo sii marayo kooxaha reer Talyaani Champions League iyo Europa League labada kooxood Roma iyo sidoo kaleeto Juventus iyo Europa League joogaan halka Inter iyo AC Milan sidoo kaleeto ay Champions League joogaan. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa saddex qodobada ugu muhiimsan kooxda Arsenal maxay tahay dhibaatada haysato maxay tahay sababta ay ku qaadi karto iyo wadada u furan ee horyaalka qaado. ugu horreyn waxaan ka doonaa kooxda Arsenal. kooxda Arsenal saddex kulan oo ciyaartay kulanka Liverpool kulanka West Ham iyo kulanka Southampton saddexda waxay lumisay 9 dhibcood ay laga rabay inay keento waxay lumisay 6 dhibcood waxay keentay 3 dhibcood. taasina waxay u sahlaysaa kooxda Manchester City oo laba kulan gacanta ku haysato haddana kaaba si daran maalinta arbacada ama talaadada midday tahay ma aqaano waxay wada ciyaari doonaa Arsenal ciyaar kulan oo final ah. haddii Arsenal ma kula tahay Arsenal inay badi karto haddii ay badato maxay faa'iido ay u tahay badiskaas? Arsenal haddii badiso waxay faa'iido u tahay hoggaanka waxa ay Man City iyadoo kulan u dhiman tahay 70 dhibcood leedahay Arsenal iyadoo 25 dhibcood taasna waxay u sahlaysaa Arsenal 3 dhibcood muhiim ah ay ka qaadatay. taasna waxay qilqili kartaa inay difaaci karto. Arsenal waxa uu dhinaanaysa 5 kulan halka Manchester City waxa uu dhinaanaysa 6 kulan oo farqiga u dhaxeeyay waxay noqon doontaa 5 dhibcood xitaa haddii ay soo badisay xitaa Man City kulanku baaqiga ah. marka Arsenal kori hoos maxaa laga rabaa? Arsenal kori hoos waxaa laga rabaa in ay badiso. haddii ay badi weyso maxaa dhacay? Arsenal haddii ay badi weyso iyadii horyaalku waa isdaayeen kulanna baaqi gacanta waa lagu haystaa dhibcahana waa laga soo yareeyay oo hal dhibca Arsenal Man City inay ku qabato laga yaabaa kulanku baaqiga markii loo xisaabiyo. laakiin haddii ay taan qoweyso maxaa dhici karto oo Arsenal ay badiso? Arsenal haddii badiso waxay noqonaysaa faa'iido ugu weyn waxayna ku dagaalami kartaa kulamada u dhiman in ay badiso oo ah 5 kulan. Manchester City waxaa laga rabaa in la ay finaalka kulamada ugu dambeeyo waxay noqon doontaa in sidii hadda ka hor dhacday oo kaleeto 14-kii la gaaray lugta ugu dambeysay ee Manchester City ku qaaday 1 dhibic. marka taasay dhici karto in Arsenal ay ku qaado dhibic waana haddii Arsenal ay ka go'an tahay dardarkii lagu yaqaanay Premier League kulamada ugu horeeyay sidii u ciyaari jirtay u ciyaar man kula tahay laba kulan ugu dambeysay ciyaareen kulan Premier League kulan FA Cup laga reebo labada kulan waa laga badiyay Arsenal oo Manchester City ayaa badisay. marka ma kula tahay in Arsenal ay ka badi kartaa Manchester City waa calaamad su'aal weyn ee meesha ka taagan. reer Talyaani sanadkan waxay u muuqataa in mid kamid ah ay final gaarayaan dabcan way gaarayaanba Inter Milan iyo AC Milan midkii soo badiyo wuxuu si toos u tagayaa finaalka taasoo ah in ay finaalka ciyaarayaan. laakiin dhanka kaleeto Manchester City iyo Real Madrid iyada naftigeeda waa kulan adag groupkaasna waxaa isku soo jibiyay Chelsea iyo Real Madrid Bayern iyo Manchester City. Bayern oo aragtay si awood lahaa lagu kala daray mac salaam oo la guriga marka taa ka soo dhamaatay hadda waxay taagan tahay semifinalkii yaa u gudbi doona finaal. haddii Manchester City ay ka soo adkaato Real Madrid ani ahaantii waxaan qabaa Champions League Man City meel loo dhigo waa sida aniga aan aaminsanahay. haddii Manchester City ay waxa 100% arrin wanaagsan in Real Madrid u soo baxdo maxaa yeelay way iska dhici karaan wayna fahmi karaan reer Talyaani way yaqaanaan Real Madrid si loogu badiyo. laakiin haddii Man City ay soo baxdo way ku wareerayaan maxaa yeelay Man City waxay wadaa ciyaartooy laa iyo kadkooda waa isku mid waa
mid la tuuri kara ma lahan. taasaa keenayso in ciyaartoy walbaba uu rabo boos sidoo ku heli lahaa finaal uu ku gaari lahaa. taasna waxay u sahlaysaa Manchester City inay Champions League ay qaado. riyada Manchester City inay Champions League qaato waxaa rumey kareeto Manchester City oo Real Madrid ka badiso. taasna waa riyada ugu weyn ee Manchester City ay haysto. okay, guud ahaan dhanka Europa League haddii aadno, Juventus waxay joogtaa waxay u bixi doontaa Sevilla, halka Roma ay u bixi doontaa Bayer Leverkusen oo Xavi Alonso oo wado dardar xoogan naadigaasna soo dhisay markuu imaanayo halka hoose joogan. haddana waxay 5 dhibcood u jiraan inay imaanaan Champions League kaalinta afraad. Roma Jose Mourinho asigooda lagama sheekeynayo, wuxuu soo qaaday koobkii horeeto cusba, haddana waxa uu joogaa semifinal. haddii uu kasoo adkaado Bayer Leverkusen, Juventus haddii kasoo adkaato Sevilla, taasna waxay sahlaysaa in Juventus iyo Roma ay finaalka isku qabtaan. kooxaha reer Talyaanina waxaa imaan doonta mid ka mid ah 5 in ay Champions League ku imaadaan sanadka soo socda hadduu Ilaahay idmo. maxay tahay caqabada haysato labada kooxood? Sevilla waan ognahay waa koox ay hadda soo asturta Manchester United oo riyadooda ay ahayd inay 3 koob leeyahay ku guuleysato. Premier League meel ka baxay baa la aruuriyo. FA Cup haddii ay joogtaa maanta ay ciyaaraysa, kaasna haddii la reebo waan arki doonaa ama haddii ay soo baxdo labada mid. Europa League-na waa loo soo qubiyay. Europa League waxa uu soo qubaystay kooxdii ahayd. okay, guud ahaan waxaan dhihi karnaa Europa League kooxaha reer Talyaani sanadkan imaamadooda lama haysan kareeto. kooxda Bayern Munich maxaa ku dhacay? kooxda Bayern Munich shalay gool ay la hormartay, 3 ayaa loo sarifay. Tuchel waxa uu dhibaato ku yahay kooxda Bayern Munich, waxaana uu burburinayaa Bayern Munich ayagoo tababarooda hore iska buriyaan. Tuchel iyo maxaa kala haysto Bayern Munich dhibaato xoogan isku qabaan. 7 kulan loo leeyay, waxaa guuldareystay 3 kulan, waxaa uu badiyay 4 kulan. taa waxaa kaga sii daray Champions League waa ka reebay, Bukaalo oo ka soo reebay. horyaalkana shalayto gacantiisa ayuu ka bixiyay oo hal inuu la hormaray 3 lagu baray lagu bedelay. taasna waxay noqotay Dortmund Janis waxay 4 ku adkaatay, kadibna waxayna hoggaanka iyo hal dhibic ku haysaa Bundesliga. waxaana u dhiman waa 5 kulan. 5taas kulan haddii Borussia Dortmund ay adkaysato, horyaalka Bayern gacanteeda toos ayuu u baxayaa, waxaana sanadkaasi ku guuleysan doono Borussia Dortmund. waana riyada ugu weyn Borussia Dortmund ee sanadkan ay ku riyoonayso. taasna waxa uu soo dhigay Thomas Tuchel oo kulan kale taluus gareeyo ama kulan kale baraj galo. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabay doonaa. haddii aad ka heshaa asxaabtada gaarsii, haddii aad nala joogto intaan waxaan kaa codsanayaa inaad noo laagarayso, noo sheegarayso, asxaabtada gaarsiiso. waan kaaga mahadcelinayaa.